qabyaaladdu waxay ka mid tahay xaqiiqatan dhaqanada ugu liita ee bulsho wanaagsan baabiin kara xataa haddii isku af isku dhaqan isku diin iyo deegaan yihiin waana waxa ugu badan ee dadkeen iska wacyigeliyaan haddana ku dhaqmaan iminka meel baynu ka hadlanahay waraysi baad iga qaadaysaa qabyaaladaynu ka hadlana ama qofku maqaaxi ka hadla ama social media ka hadla ama tv ka hadla wuxuu qornay war baashaas oo xuntii naga daayay haddana kama badna marka dadkeeni badankoodu waxay noqdeen qof xanuunsanaya oo xanuunkii hayay qof kale ka daweynaya isna isdaweynaya isjiifinaya mar kasta oo cabsalaan oo sharcigu sareeyo qabyaaladda iyo adeegsigeedu wuu shaqaa mar kasta oo sharcigu daciifana qabyaaladda iyo adeegsigeedu ama ku dhaqankeedu wuu xoogeystaa taasina waxay ku tusaysaa in qabyaaladda iyo sharci darradu mataana yihiin siday caajiska iyo fakhriga mataana u yihiin inta horta maxay ahaydee Soomaalidu noolayd ee dadku geeyeen abwaanadu inta wacyigelin ayuun bay sheegayeen maantana waa la sheegaa dadkuna waqtigan haddaad gabay fiican oo qabyaaladda tiriso wax ka badan taankiyo oo dhaafsiisan ma jirto wuu kuu sheegayaa inuu gabaygu fiican yahay haddana halkiibuu ka miisaya maalin dhaweyd waxaan sameeyey heesta la yidhaha hankaagu ha dhaafa reer hibe kadibna nin aan saaxiibanahay oo Axmed Cismaan Batuun la yidhaha baa ila soo hadlay wuxuu yiri war xasan war niyo hees wanaagsan baad samaysay oo tiiban kule markaas uu yidhi hankaagu ha dhaaf laakiin sidaa ayna tiraahdo ma ahayne waxa la lahay hantida kaliya la heli karayo hugii dadka iyo hubkii weeye halkaynu u dhaafay reer hibe ma garato cabsalaana waxaad aragtaa dad badan oo ku faanaya laandheeraanahay oo laabta garaacaya brother kuma faani kartid waxba laabta ismadoobay inaad laandheera noqoto shaqaa qabatayba horta soo waxa dooratay waxaad ku faani kartaa dad moofo yar samaysay maqaaxi samaysay adoo dad wuxuu soo biirisay soo kordhisay waad ku faani kartaa iminka dhararkayga aan waxba kama bedeli karo kuma faani karo waayo ma dooray sidaan dhararkayga ugu faani karin ayaana reerkaan ka soo jeedo iyo qabiilkaygana ku faani karin mana jiro qabiil ka fiican iyo qof ka fiican baa jira wadaga fiicnaan kartaa dhaqan ahaan asluub ahaan aqoon ahaan dhinac walba laakiin waxa laga yaabaa inaan adiga qabiil fiicnaan farihiinuna ma silna markii aad ii sheegtay in barnaamij aad iga qabanayso waxa jiray quraan wadood igu dul qabatay ma xafisani laakiin waa ku akhrin karaa kuwii horena waa badan yihiin oo qorraxdan dhalataa qisooyin dhasho taariikh qortaa xaqiiqda qabto qabyadu noloshay ka qayb tahayo dunida qaxarka qareen laaho haddaad qani tahay in baa qubano haddaad qunu tahay in baa qaxayso haddii qulqulka biyuhu qotomaan in baa kula qaban macada qaaro qoriga wax diliya qaraxya ku dhintay haddaad qaldanay haddana qumanay bulshay qoosay haddana qastilaay qorin isku mida afkiya qowlku qaadirku ku abuuray meel quro oo sasun kala qaba qumaatitiin ugu qoomiyada dunida quwadla afkaar kala qaba dastuurna qortee kursiga ha qabsada qabiilkaanahay nabadda ha qoon qanaad ku tahay waxa kamid ah intay qolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarinu hayaan intay qarfajaan u sii qaxayaan intay qalqalooc qumani badayaan dasuugaanta qabyaaladdan ka tiriyaa aad bay fara badan yihiin laakiin imika waxa laga yaabaa in 500 oo heesood leeyahay dadku waxay weydiiyaan warteebaad jecesha warutaan mar kasta ta ugu dambeysay marka